بسم الله الرحمن الرحيم walaalkayga khaaliga ahow iyo walaashayda khaaliyada ah meel walbo caalamka aad ka joogtid idageyso oo farintani aday kugu socotaaye ha iska gudbinoo cid kale ha ku tuurin ibn Abbaas radiyallahu anhuma ayaa maalin wuxuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waaninaya nin وحونا كيري اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ودردارا إيوانك سعط قف والبو أمد محمد كمده إلى قيام الساعة وحونا كيري نبي ننكاسي كفا إليس شن أريمود ونلش على صومرا انتيسن كهليل شن كلا وكلها ردونا وشن نعمة أو قيمة وين كله نلش بني آدمك أو الله أود يخ روح والبا وهدي آدم كفائدة سنين دبدم بأو أركين وجو حيكون رافي دونا نسدها بينكي حالي أو تجي مسوعلين كرتا حالي وسؤاله جوابتها سأديك على سجايا دردارن كقوات كفائدة صدّاليرن ماذا أنت هذا جبوبين أما أيسن كهلين دقنمو أو فديك الدر يدجال قبيلات أتكع الروضة أو تكد فوضى أذو دلّة تمرتك وجرتا هكود من ملعت الله كفائدة سو دتكاج يدلكاج أفائدة أو هي رئيسا وناجا أت أمضى تركرتو مستقبل في عند سو تكبد بادو كنا ليبانتو الدنيا آخره دردارن كلابادنا كفائدة سو عافمات كاجا أنت هذا حنون سنة أما أيسن جروح كعوريا منين أو سريرتك صارن أو دخاخي كريويدو عافمات كأنت تلاذهي نقر روح واحتر له سيئات ونقطو كوا هرك الله جل دونا نخو شاب نشأ في عبادة الله هسوين إلا أي جروح كسويررتو أو يكدبر جويسو مركاسي محي شلايتكو تري دردارن كسدحات كفائدة غني مدادا كهر انت ايسن نلشادا دبولين فقر iyo saboolnimo ogow lacagta waa waxyi maada hadana ka taga oo ku dhaafa lacagta ku soo martaa ha kala bakhaylin jimciyaadka khayriyada ah ka qayb qaado qoodinta masaakiinta dhisid masaajid ceel qodis kafaala qaadid agoon sadaqa bixinta badso khayr walba oo ku soo mara ha ka gaabin inaad wax ku bixiso inta aadan gaarin xaalad faqri ah oo aad weydo xitaa xabad timir ah oo aad sadaqaysato dardaaranka afraad ka faa'iideyso firaaqadaada inta aadan mashquulin ka hor ruux walba waxaa soo mara waqti yar oo uu firaaqo leeyahay loona baahan yahay inuu waqtigaasi firaaqada ah kaga faa'iideysto wax manaafacaad leh oo nafsadeena faa'iido u ah ehelkeena faa'iido u ah dariskeena faa'iido u ah mujtamaca guud ahaana faa'iido u ah haddaba ma ka faa'iideysanaa waqtiga waa su'aale oo maalin walba quraan ma akhrisaa waqtiga firaaqada diinta waqti ma gelisaa inaad barato mise waa iskala weyn tahay ehelkaaga iyo qaraabadaada ma xiriirisaa dadka xanuunsan ma booqataa si adna lagu soo booqdo markaad xanuunsato dariskaaga ma tustaa quruxda islaamka mise waxaad aaminsan tahay gaalka xaq daris kuguma leh mise firaaqada waxay kaaga dhuntaa ood ku dishaa killing time sida ay yiraahdaan si aadan ogeyn oo buufis xan iyo warxumo tashiil aad bulshada ku samayso ilaa la waayo qof wanaag wada ogow markaad mashquusho wax aad ka gaari karto ma jiraan dardaaranka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu soo koobayaa maqsadka lagu abuuray ka faa'iideyso noloshaada inta aadan dhiman oo xabaalaha lagu geynin ogow qof walba waxaa soo marta cimri xadidan oo uu nool yahay waxna qabsan karo kadibna waad geeriyoon waad dhimanaysaa waxna ma qabsan kartid oo adigaaba u baahan cid ku qaada oo ku dhaqda xabaalahana ku dhex dhiga godkaasna lagaaga soo tegi doono adoon awood lahayn aan dhaqaaqi karin walaal noqo qof caaqil ah oo ka faa'iideysta dardaaranka uu siiyey nabigan ku jecel oo raba inaad dariskiisa noqoto fil firdaws al-a'la insha Allah maanta laga bilaabo ha sugin daqiiqad kale haddaba ka bilow oo fariinta gaarsii walaalkaaga aad jeceshahay